asalaamu calaykum daawadayaal meel kastoo aad dunida ka joogtaan waa mudane af iyo qaalin media farmaajo maxaa uu kaga duwan yahay madaxweynayaashii hore ee intii burburka kadib dalka soo maray jawaabuhu midna ra'yigeena ayaan ku saleynaynaa midna waa ra'yiga bulshaweynta ummadda Soomaaliyeed kayna shakhsiga ah haddii aan eegno farmaajo waxa uu shacabka tusay amaana xaalkii ee ku sugneed intaa ka hor intaa waxaa sii dheer qabka dowladnimo uu kor u qaaday waxaa sidaa u leenahay sababtoo ah min maalintii uu yimid madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ilaa iyo maantadan oo doorashooyinkii loo dareeraya faritoole oo isliin ah 15 May 2022 lama arag cadowgeena ee xuduudaha aan wadaagno iyo kuwa naga fogba safiir ama danjire ka socda loo soo dhaweeyaa sida madaxweyne ama ra'iisul wasaare balse la kulmaan dhigooda xagga darajada ee wadaagaan halka bariyihii hore aan arki jirnay sida loogu tuman jiray madaxdeena oo marqaati leh aan marag u baahnayn nin walba oo shacabka Soomaaliyeed ahna uu ka dharagsan yahay haddaba daawadayaal ila wadaaga shucuurta shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulkeena hooyo ee balaaran goboladiisa kala duwan qalbi dhagax halkaas waxba kaaga baahnaan leenay jijigaad wax ka qabanaysa weelka jijiga hadii kale xamar waxba ka barbagaandhayn iska soo bax farmaajo meeshii uu dhistay farmaajo ama taageer ama iska soo bax horta Soomaaliya waxa badbaadin karaya oo madaxweyne farmaajo معارض وحبا ما صوبه معارض وحصوده ما جرو معارض قبيل اسكو urursaday weey magaran saayay sifan qabiil iyo wax noocaas معارض isku urursaday weeyaan marka madaxweyne farmaajo waa ninka kaliya ee Soomaalinimadu ay ka muuqato horta kulay qalbi dhagax iyo doorashada Soomaaliya anigu macnaha fikirkayga waxaan u arkaa mid khaldan federaalka Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa dadna shacabka Soomaaliyeed inay codkooda siiyaan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo nin walba oo maanta caaqil ama aqli u saaxiiba uu garan kara maanta ninka uu taageerayo haddii uu Soomaalinimo ku jirto haddii uu dan kale yahay Soomaalinimo karaamo sharaf rajo dadnimo iyo nolol inta hadduu dan kale yahay ciduu taageerayo garan waa farmaajo madaxweynayaashiisa ka horreeyay iyagoo dana gaar leh ama aqoonada loo qaminayo u dan leh bay magaranaysaayay meel ay saari waayeen inay Kenya ka adkaadaan madaxweynayaashii ka horreeyay iyagoo la macaamilaya Kenya ama xiriirka Kenya iyo Soomaaliya u dhaxeeya xumaanaya iyagoo ka wada laakiin isagoo dakhliga uga baahnay Kenya la macaamil iyo wada shaqeyn aan uga baahnayn dareen Soomaaliyeed buu badda ku soo dhiciyay waa ta kale qasnadihii madnaan jiray ee magaranaysaay lacagooga la cuni jiray ee madaxweynayaashii ka horreeyay markaan ay ku wareejin jireen markii ay ku wareejiyeen farmaajo uu qabsaday riyaal lacag kuma jir $1 ama $1 kuma jir السلام عليكم عليكم السلام يلا ديار مثلا ها ديار وانا اروح اللبان سيد عبد الله الدنيا فرماجه كعد كاغ سين لهاد waxaan siin lahaa baayo maxaa Cabdullaahi farmaajo baan siin lahaa maxaad ku siimsan maxaa ku dooratay waxaan ku doortay 5 sano xilka uu hayay dalka iyo dadka waxba uu qabtay la taaban karo oo muuqan kara wuxuu dhisay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu soo celiyay hawadii Kenya laga maamuli jiray wuxuu qabtay wax kan yaada badii uu soo celiyay waxyaalaha muhiimka ah la taaban karo oo maxaa Cabdullaahi farmaajo codka ku siin lahaa taas weeyaan dani ma ku daraa in waxaan ku siiyeen aad waa santahay dani waxaan ku siiyeen waa madaxweynihii Puntland askari Puntland daranahay waxa kale yiraahdo hal wax qabad baan u hayaa taasna sheegi maayo hadda balse wax saxay oo kale ma jiraan dhibta caqabada ugu badan waxay ka jirtaa afkiisu dani eersanaya hadduusan khudbadayn dani waxa kan yaado boosaaso buu dagaal ku qaaday asoo dikreetadiisa inay socoto doonaya waxa kan yiraahdo way u socon weyday waa la iska difaacay in diyaano markuu weerarayay gudoonkii baarlamaanka quwadda saddexaad oo Puntland buu weeraray oo ogtihiin dhoobo daarood hoolka baarlamaanka Garowe buu dagaal ka sameeyay taas baa waxyaalaha sababaha la taaban karo oo ku siiyeen saasa kamid ah
إن شاء الله waxaan rajaynayaa madaxweynaha dalka Soomaaliyeed hogaamiyaha ruuxiga inuu soo noqon doono ma rajaynayaa وعليكم السلام سؤالك دار تبعه ها هذا حلبان الدنيا فرماجة كي عدك في الهيد محمد عبد الله فرماجة حق دورت مع عبد الله فرماجة waxaan ku doortay waxtarkiisa iyo waxqabadkiisa wixii muuqda muhiim kala بسم الله وأبو سلامة يا برادة مقعي وفارع محمد علي وحن رنتي وهم بليانة أمضى الصوماليات أو بريسو جيسة مالكي جوشي وينيد أي مدة درس ولا برديق عيان بري وحيخص صنت هاي شنو 8 كمية أو مالكي أسوأ إله دورشة دعي دون تنا وحكسوا بيحد دون سام فله إنه ندش أسوأ إله وحدش أسوأ إله كجلينا وحكليه وكشر محمد عبد الله فرماجو نندل كان يدين يدتك عقبتنا كل جسا كشره مركب وحنسوق النابة بري وجوشة طلبات إن عكام بارسنا ميدو فرماجي هاي من أي تاي مالكي 15 مي مالكي لن يرى سوال وحن آدي أسودوين لها نقطة سنة الحين مدنا شعليهين محمد عبد الله فرماجو نكاسا دلك وفي عندي انتبه والله واحد لي كرا أنا نكا وان قبله وان دولتي لسه دقاله كرو قاضي شارك عيدا كا وحول بابا marka aniga ahaan aad ayaa taageersan ninkaas Soomaaliyeed dhanna waa jeceshahay marka inta daba sama korkeeda laga jeclaaday dhulkana waa laga jeclaanayaa marka waxaan leeyahay madaxweyne marka loo soo noqdo laakiin waa farmaajeysanaha aad aan farmaajeysanaha shucuurtaydana mid la qarin karo ma ahan marka waxa waaye imtixaan rabaa inaan ku gudbiyo shucuurta farmaajada mid la qarin kara ma aha waa nimco ilaahay dalka u soo diray waxaan marka dadweynaha iyo xildhibaanada iyo bulshada iyo shacabka ka codsanayaa in nimcada aysan naga qarinin intaa ka bacdi dab baa la shidaa waabaa ka dilaacay bari doow baa la maraa dayax baa lagu dheelmadaa daruur baa hoodhadaad baa carrada qabsada doogii soo baxa farmaajo inoo soo celiya fursad labaad siiya waddanka maslaxadiisa weeye anadu sharafta leh damaca shacabka Soomaaliyeed waa taqaanaan 30 milyan oo Soomaaliya ha idin duceyso ama 30 milyan oo Soomaaliya ha idin ka naxdo oo ishooda ha idin ku dhacdo nimankii la oran jiray beesha lixaad oo gaalada ahaa cunuhu qabtay meel buu iska saaray ilma adeerayaal oo cadow ha inoo jabinina hay saa dambe berri baan inaga hartay waxa u dareereynaa doorashada dalka ninkii hoggaankiisa qaban lahaa ilaahay baa idinku dharshay damiirkiina hadan qado dadnimadiinu hadan qato diintiinu hasarayso ilaahay subhanahu wa ta'ala ummadda muslimada ah oo miskiinta ah beledkaas mankuubka ah oo dhibaataysan dib ah ku celinina maanta wuxuu marayaa meel ilaahay looga mahadiyo maanta wuxuu marayaa talaabo mid qaaday oo daadah dibadda bare la yiri wuxuu u baahan yahay gacanta in la qabto wuxuu u baahan yahay daacad in loo noqdo wuxuu u baahan yahay da'yarta dibadda ku dhibaataysan in laga fikiro doorashada amaano weeye ilaahay baa idin dhiibtay waa garanaysaa inuusan ilaahay u dhiibin maanta ma heli lahayn qul illaahumma مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير والله العظيم كل وأديب لها نين أنيق إلمد نين أذيق كلمدا يمد محايا هيدا نلمدا وهل قوان قاتا لكن ولا ليال إلهي واسكوك يا امتحاميا والله العظيم تاريخ ذو ويقريسا نين كمانتا dalkiisi iyo dadkiisi iyo diintiisi iyo dumarkii iyo da'yartii iyo dhibkii dhacay u hiliyay iyo ninka garabkiisa ka baxay intaasi waxaan leeyahay xildhibaanada dhibka ina haystaa tira ma laha wallahi alcadiim khaarijka dadka dibadda jooga dhib bay nagu hayaan dowladaha maxay ahayd dibadda gudaha dhib baana looga hayaa oo rag la soo isticmaalay oo maxay ahaydayay qalbigoodii iyo uurkoodii iyo calooshoodii la gatay iyo damiirkoodii baa gudaha inoo fadhiya ilaahay subxaanahu wa tacaala baan idinku dhaarinaya ummaddan cadowga ku soo duulay mid khaariji ah oo dibadda ah iyo mid gudaha kuu fadhiya intaba maanta waxaad oga gudbaysaan gacantaadaas iyo fartaadaas iyo qalinka inuu ilaahay ku waafajiyo maslaxada ummadda aakhiradaada ku jirta
دنت هذا كجرتا دينت هذا كجرتا والله العظيم ما أنت أمدا لباتيسا سدح ذا بقول كدوات حل دبان وحي مثلا 30 مليون أو ضد بي مثلا